madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalo xuduudeeda Lowyacado waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Salal maayirka magaalada Saylac saraakiisha kala duwan ee ciidamada Soomaaliland dadweynaha magaalada Lowyacado madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay wehelinayaan safiirka Soomaaliland u jooga dalka Djibouti wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland mas'uuliyiinta mashruuca maamul daadajinta GBLG-ga ayaa waxa sidoo kale si ballaaran oo loogu soo dhaweeyay deegaanka Toqoshi waxaana sidoo kale uu kala hadhin soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa dadweynaha magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal kuwaas oo iyaguna si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo ugu horeyna waxa soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka ka hadlay maayirka magaalada Saylac Yuusuf Cawaale Daahir iyo barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur waxaana hadaladoodii kamid ahaa mudane madaxweyne ku soo dhawow degmadii Saylac ku soo dhawow gobolka Salal ku soo dhawow albaabkii laga galayay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu si kal iyo laaba ugu mahad celinayaa bulshada reer Lowyacado oo si mug leh uga muuqata halkan dhammaantood yar iyo weyn aabiyo hooyo wiil iyo gabdhaba kullay milig kooban hadalkiisu gaaban waxay tahay un kelmadaydu inaad ku soo dhawaato albaabkii laga soo galayay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawow salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ugu horreyn ilaahay baa mahad leh marka koobaad marka labaad waxaan soo dhaweynaynaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo inooga yimid dawladda aynu jaarka nahay ee Djibouti isagoo safar shaqo inoogu yimid si uu hawlihii qaranka ee awalba socday uu qaybtiisa uga sii qaato iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo isna la socda iyo safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland Djibouti u fadhiya iyo wafdiga kale ee championka ee jicir ka mid yahay dhammaantoodba waxaynu leenahay ku soo dhawaada gobolkii Salal ku soo dhawaada degmadii Saylac ku soo dhawaada mudane madaxweyne magaaladii Lowyacado ee xadaaradda iyo soo dhaweynta iyo ixtiraamka dawladnimada lagu yaqaan aad iyo aad baan u mahadsantiin shacabka reer Lowyacado oo idin mahad celinaynaa madaxweynaha safar dheer baa sugaya kelmadooda oran doona dhankiisa waxa isaguna halkaasi ka hadlay oo ka mahad celiyay soo dhaweyntani ballaaran ee uu sameeyay shacbiga gobolka Salal iyo ujeedada safarkiisa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxana uu yiri alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa sayyidina Muxammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dhammaan shacabka reer Soomaaliland madaxda gobolka Salal madaxda degmada Saylac dhammaantiin marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ilaahay baa mahadle saaka kan nabad nagu soo gaarsiiyey waxaa kaloo mahadda labaad leh dadweynaha reer Lowyacado ee sida sharafta badan ee waddaneedda leh nagu soo dhaweeyey Lowyacado albaabkii laga soo galayey Soomaaliland aad iyo aad baad u mahadsantihiin sharaf weyn baad naga mudan tihiin soo dhaweynta qiimaha badan ee samaysan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waana tuaan isku leenahay oo laydinka filayey ama dad ku dheertihiin xadaaradda haddaad tihiin degmada Saylac aad iyo aad baan mar labaad iyo saxaaba inagu mahadnaqaynaa waxaan u soo baxnay shaqo kooban oo ah kormeerkii dawladda hoose oo intii badan kuwa waliba mashaariic ay ka socota leeyahay maamul daadajintu oo degmadiina Saylac ka mid tahay waa degmadii ugu dambeysay soo kormeernay iyo maanta noqonaysa insha Allah degmooyin kala dhan waa soo dhamaynay halkan markaa maadaama maayaradii loogu qabtay tababar sharci qaadanaya magaalada Djibouti aniguna Djibouti dara u soo gaadhay waxay noqotay in halkan ka soo baxo si aan maartay hawshii halkan uga fuliyo aad iyo aad iyaga reer Lowyacado aad baad u mahadsantihiin Sikariya Cabdi Shaafar Sikariya Saxane magaalada xuduudeeda Lowyacado